waddanka Syria ayaa maalintii Jimcihii la soo dhaafay soo riday diyaarad maraysay xuduudda labada wadan ee Syria iyo Turkiga. Diyaaradda oo ay saarnaayeen laba hage amaba pilot ayaa ilaa iyo iminka lala yahay raq iyo ruux toon ah labadii pilot iyo diyaaradaba, iyadoo diyaaraddu ay ku dhacday meel bad ah oo markaa biyo mareen ah oo u dhaxaysa waddanka Syria iyo waddanka Turkiga. dowladda Syria ayaa digniin xoogan ka bixisay in aan ciidamada waddanka Turkiga ee cirka iyo waliba xulafada NATO oo waddanka Turkigu uu ka mid yahay aysan wax jawaab ka bixin karin amaba argudasho, iyagoo ku sifeeyay amaba ku sheegay soo ridada diyaaraddaasi inay tahay mid ay nafsada waddankeeda iyo qarannimadeeda ku difaacaysay. sarkaal sare oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Syria ayaa ka dhawaajiyay in haddii ay diyaaraddaasi xataa ay ahayd mid laga leeyahay waddanka Syria ay soo ridi lahaayeen maadaama ay xiratay buu yiri idil ahaan waxa isgaarsiin ah ee diyaaradaha hawada mara ay kula xiriiraan goobaha laga haga diyaaradaha ee loo yaqaan control panels. Ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Liibiya al-Baghdadi Ali Mahmoudi ayaa maanta dib loogu celiyay caasimadda waddanka Liibiya ee Tripoli. al-Baghdadi ayaa sanadkii 2006 waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii xukuumaddii mayalka adkayd ee uu majaraha talada waddanka hayay madaxweynihii la dilay ee la oran jiray Muammar al-Gaddafi. al-Baghdadi ayaa muddo yar ka hor intii ciidamada mucaaradka amaba nimankii loo yaqaan NTC National Libyan Transitional Council aysan la wareegin awoodda maamulka waddanka ka baxsaday magaalada Tripoli isagoo u baxsaday waddanka Tunisia. waddanka Tunisia ayaa siiyay magangalyo siyaasadeed, hase ahaatee waxa aad moodaa Tunisia in ay jebisay xeer ka mid ah xeerarka caalamka qaxootiga marka qof bini aadanahi uu weydiisto waddan kale waxa loo yaqaan magangalyo siyaasadeed. tan ayaa daba socota ayaa la yidhi in idil ahaan raggii hore ee madaxda ka ahaan jiray dowladdii uu madaxda ka ahaa Muammar al-Gaddafi ee waddanka Liibiya kuwaasoo baxsad ugu kala maqan ayna ka mid yihiin qaar ka mid ah xubno familigii amaba caa'iladii Muammar al-Gaddafi laga yaabo in ay dib u soo celiyaan wadamada kale ay ku baxsadeen sida waddanka Algeria iyo Tunisia. halka warkaasi idinkaga imanaya waa stuudiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee magaalada London. iminkana dhacdo la yaab loo cajiib oo ka dhacday magaalada Seoul ee waddanka South Korea. 27 jir saxafi ah, hase ahaatee aan ahayn saxafi caadi ah oo saxafi indhahala, ayaa markii ugu horeysay taariikhda abid caalamka akhriyay warkii caalamka ee waddanka South Korea. saxafigan oo lagu magacaabo Lee Chang-hong ayaa ah gebi ahaan mid aan labada indhoodba wax ka arag, hase ahaatee sida saxaafadda waddanka Korea ay ku warantay saxafigu waxa uu adeegsanayay baa la yidhi gacantiisa isaga oo markaa isticmaalaya aaladda qalabka loo yaqaan braille. waa halka wariyaasha caalamka ee wararka akhriya ay ka isticmaalaan aaladda shaashad akhriska ee loo yaqaan teleprompters. Lee Chang ayaa la filayaa inuu dhowaan si buuxda u akhriyo qayb ka mid ah wararka caalamka ee waddanka South Korea. waa dhacdo cajiib ah oo ku soo korortay baa la yidhi qof aan jirkiisu dhammayn isla markaana dadaal heer intaa la eega gaaray. hadduu aabba idmana tan iyo intaynu dib ugu kulmi doonno warkan iyo mid la mid ah oo idinkaga imanayay stuudiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee magaalada London. waa aniga iyo farsamo yaqaan Aamir Yare iyo Cali R oo idinle dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh meel kastoo aad daafaha dunida joogtaan.